dacwadda la xidhiidha muranka dhulka xuduudka badda ayaa soo jiitamaysay in ka badan 10 sano balse dawladdii hore madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July 2014 maxkamadda ICJ geysay kiiska ka dhanka ah Kenya oo doonaysay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafkaasi. Soomaaliya waxay doonaysay in cabirka xadka badda si toos ah loola dheereeriyo xadka dhulka halka Kenya ay doonaysay in la leexiyo baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay. waxa uu gaadhay 100,000 oo kiiloomitir oo isku weera. Markii hore kiisku waxa uu ku saabsanaa in ICJ ay dhageysan karto muranka labada dal ayna go'aan ka gaari karto. Abriil 7 2009 dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kenya ayaa kala saxeexday heshiis isafgarad oo la xiriiray xadka badda ee labada dhinac. heshiiskaasi waxa dhinaca Soomaaliya u saxeexay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga. Dhinaca Kenya waxa uu saxeexay Master Masos oo markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. heshiiska kuma jirin arrin la xiriirta xadka badda balse waxa uu dhigay hanaanka loo mari doono in lagu xaliyo khilaafka xagga badda ee labada dal u dhaxeeya. August 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer kadib aqlabiyad baarlamaan ugu codeeyay in la laalo heshiiska is-afgarad ee dhex maray Soomaaliya iyo Kenya. kulanaan caadi ahayn oo yeesheen ayay baarlamaanku gebi ahaanba ku diideen xitaa in dood ku saabsan arrinta dib loogu dhigo oo wasiirka arrintaasi khusayso la siiyo fursad uu ku faahfaahin karo heshiiskaasi. July 13 2015 sanad kadib markii ay ku wargelisay maxkamaddu inay dacwadda u wado Soomaaliya ayaa si rasmi ahaan kiiska badda u geysay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. xeer ilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa xilligaasi sheegay arrinta inay go'aan ka gaari karto oo kaliya Kenya. maxkamadaasi oo xilligaasi xeer ilaaliyaha guud ee Kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskan ay geyso maxkamadda caalamiga. December 18 2017 Kenya ayaa xareysay jawaabta ay ka bixisay kiiska Soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee ICJ. xeer ilaaliyaha guud ee Kenya waxa uu ku dooday in maxkamaddu aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaadho kiiska. waxa uu codsaday in arrinta labada dal ku xaliyaan wadahadal. Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda ka bixisay jawaab ku aadan codsiga Kenya ay maxkamadda ugu dalbanayso in arrintani dibadda maxkamadda lagu dhameeyo. xeer ilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay u aragto maxkamaddu inay tahay goobta kaliya ee lagu kala bixi karo waxaana xukuumaddiisu ay diiday doodii Kenya ee ahayd in labada dhinac ay gaadheen heshiis is-afgarad oo waafaqsan xeerka caalamiga kaasoo ay tahay in Soomaaliya ay xushmayso. Soomaaliya ayaa ku dooday in heshiiskaasi uusan sharci ahayn maadaama ay diiday baarlamaanka Soomaaliya. xilligaasi February 2018 maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay ayaa go'aan ka gaadhay inay dhageysan karto dacwadda ku aadan muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. xaakimka maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska kadib markii ay hadleen sharci ahaan doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya. hase ahaatee maxkamaddu weli maysan qaban taariikhda la dhageysan doono dacwaddaasi. February 7 2019 Soomaaliya waxay London shiray ku sheegtay in suuq weyn uu ahaa shidaalka Soomaaliya. bishii October 2019 maxkamadda caalamiga ee adduunka waxay dib u dhigtay dhageysiga kiiska badda oo xilligaasi la qorsheeyay inuu dhaco 4 November balse waxay ka dhigtay ilaa bisha June sanadka 2020. garsoorka maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ee ICJ ayaa ku dhawaaqay in mar kale dib loo dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. waxaana ay sheegeen inay eegayaan xaaladda qayrul caadiga ee uu sababay xanuunka COVID-19 oo ay go'aansadeen in waqtiga furitaanka dhageysiga kiiska laga dhigi doono sanadka 2021. 14 Maarch 2021 dawladda Kenya ayaa iskaga baxday dhageysiga kiiska muranka badda ee kala dhaxeeyay Soomaaliya siday warbaahinta u xaqiijiyeen ila ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha dalka Kenya. 15 Maarch 2021 waxaa si rasmi ah u bilowday dhageysiga kiiska oo ay qaadaysay ICJ. waxaa ka qayb galay oo doodooda gudbiyay qareennada Soomaaliya oo u dooday
eedeeyay oo keliya maadaama ay Kenya iskaga baxday ma isa gudbinin doodooda maanta 12 Oktoobar 2021 maxkamadda ICJ ayaa go'aan ka gaadhay kiiska waxaana xukuntay in inta ugu badan aaga lagu muransan yahay ay Soomaaliya leedahay qaybna ay raacisay dhulka Kenya markii maanta maxkamadda caalamiga ee go'aankan uu ka soo baxay waxa ka hadlay madaxda kala duwan ee Soomaaliya oo ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo soo kale madaxweynayaashii kala horeeyay ee soo maray dalka Soomaaliya siyaasiyiinta kala duwan ee ka jira dalkaasi Soomaaliya Umar Ali Ducaale Marshabash telefishinka bulsho Hargeysa abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland